أنا وعن كم إذا ورياشي إذا عد الراديو مقدشو كشقين جري حلقي دولتي هوري الصومالية مقعي وحلي هذا سعيد آذن علي سعيد أنتينا اللي يرهدا وعنا كشقين هاي راديو مقدشو أيامي وقدمي دولتي الصومالية أي بربوريسي وعن جوجي توس وجوجي إذا عد الراديو مقدشو إيو حفيزك مدحويناه الله نحرسته محمد سياد بري وعن جعلها مركا تدفر بدن oo dunida dacaladeeda kala duwan jooga ayaa isoo wacayay ayaamaha kan oo dhan waxayna rabeen inay wax ka ogaadaan dilkii la laayay wariyaashii radio muqdisho iyadoo dilkaasi uu geystay ninka la yiraahdo taakay hadda la soo dhigay facebookyada ku jira oo la leeyahay 4 naagood buu guursaday magaciisana bedelay oo Sufyaan la baxay waan markii hore u taaseenaya eheladii ay dadkaasi wariyaashaas ay ka dhinteen oo la laayay waan markaa idin bayaaninaya ninkan sababta uu u dilay dadkan ma ahayn wax qabiil la xiriira arintu waxay la xiriirtay إذا عد الراديو مقدشو أيو ربينو نكو كشقيو وهنا كمل ها أسكرتي متقانا ماشى تيمي ولا سعودي جنرال محمد فارح أيديد الله نحرسته وحج على استينو إذا عد كشقيو تدبع مركو وحيكو يرادين سلا عنوان مقلي أنت نمان كان جوغان نيو وحبن نقول ميسن وإن نمان كيسكور لحسا مسألة بسيطة بوكدلي إلى أن حريصنا كورابي رجعس ولايي ويكل دوانين وكم ذا أبو بكر محمد نور أبو بكر وريا لورنجري ننفي عن بوها شيخال بوها وأنا نو ازديد سينا يا قبيل إن أنا أفكر كشغو يعني وأنا مستحيل بيغطينا قبيل صغار لكن ما أنت وحنو الشيخية إن أنت تدك الصومالية روح عضيو وحكن سيدي أهايين ninka marka la dilay Abu Bakar Maxamed Nuur wuxuu ahaa nin sheekhaal ah ninka kale oo uu dilay waxa la oran jiray Ilaahay naxariisti janno ka waraabiye Abdul Qaadir Ali Idle agaasimo ahaa idaacada radio Muqdisho Abdul Qaadir Ali Idle waxa isaguna uu ka soo jeedaa beesha xawaalaha la yiraahdo xawaadlu ka soo jeeda waxa kamid ah dadka uu laayay ninkaani mahad aadan baa kamid ahaa xasan mahad aadan xasan wuxuu ahaa reerka la yiraahdo ugaadeen buu ahaa cabdi sheekh ali ayaa isaguna kamid ahaa cabdi sheekh ali wuxuu ahaa nimanka la yiraahdo arab saalax ama reerka arab saalax la yiraahdo ayuu ahaa waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo cabdi xange وأن يسوون وريه إذا عد الراديو مقدشو وحين ولا رسمي عاين عبد القادر جولا ويسوون كتر سناج الراديو مقدشو نكاس أي الله ولا الله نكاس الله نهارستو رجاس شنطة السجا أيه دلي نكاس مقعدة بدلنا أيه ومرنا أبو سفيان بانا إله هذا سيد الله جوه لا يقصوا بعي ولا يسلم هلن الله سبحانه وتعالى سريه إلهي بكشفي waayo xaq islaameed iyo dad islaameed buu dilay rabbi waa soo saar isaga baa iskeenay oo doodii ina ku soo istaagay oo inuu gabdho Soomaaliyeed oo masaakiina afar hal mar wada meersado oo uu mataqaana ismuujiyo oo isagoo la baxay Sufyaan oo isu akaysinaya muslimiin isu akaysin dhigi abwey dad buu laayay مساكين بولاي رجوا رياله أو وحبق قلب سن بولاي يعني وحوين بوقلي جريمة بوقلي يسوون سهل يا عيار إيو نمان كانوا ويقعد في عينيو نمان كانوا أنت يجوجان أنا وحنقون معي بو كدلي
markaasuu maanta soo istaagay oo maanta Soomaali wuxuu sheegaya aan leeyahay maxkamadda loo keeno shariicada islaamku ay qabtana sida qabtana ha loo dhaqmo ninkaas waxaan rabaa waxay leedahay runtii taxadirkeeda inaan qaato oo ah taxadirkeeda markaan shir galnay waxaan go'aansanay inaan live kan soo galo bulshada Soomaaliyeed la wadaago arrintan waxaan rabaa videogan inta aad ku jirtid waa muhiim waa wax loo wada digniin loo wado ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad share gareysaan oo ku share gareysaan dhammaan meelaha aad ku share gari kartaan waan idinkaga mahadcelinayaa runtii waa arrin xasaasiya waa arrin muhiima waa arrin la rabo in lagu dhaawaco qaranka Soomaaliyeed ama loo diido qaranka Soomaaliyeed oo hor u socdo maanta marka arrintaas soo gashay arrintaas daraadeed u safar marka waxaan rabaa inaan idin sheego taariikhdu waxay ahayd wixii aan soo marnay oo qarinoona bulshada u sheegin iyo qaybo kale oo aniga noloshayda ka mid ah saad u fahantaan okay markii agaasimo qaada la yiri wasaaradda arrimaha dibadda iska diiday waxaa la bilaabay marka weerar in lagu soo qaado weerarkaas oo ah in la iga suucay la yiraahdo markii ugu horreysay waxaa weerarkii ugu horreeyay wuxuu ahaa kow in lagu soo weeraray in aan nin western ku soo adeegsaday la yiraahdo tayga uu wato iyo suudka uu wato iyo balfiir waa gaal waa shaydaan waa sidan in sidaas lagu dacayday arrintii iyada waa shaqaylaada waa shaqay weysay markii halka shaqay weysay haddana dhinaca kale la jeeday waxa la yiri ninku waa al-shabaab waa takfiir ilaa sawirkayga inta la qaaday sawir al-shabaab qoryo wata la dhexgeli ayadana waa shaqay weysay markii intaas ay sameeyeen waxaa timid marka in la weeraro lagu soo weeraro arrin khayri ah oo islaamka u fiican oo caadooyinka islaamka qurqaadooda ah aniga iyo xaasaskayga guurka aan u soo bandhiga bulshada si aan tusaale ugu noqdo in lagu weeraro asaga oo reer laftiga sicilada looga dhigo oo lagu caayo oo diinta loogu gafo oo dogtihiin dad badan diinta loogu gafay ayadiina waa socon weysay waxaa soo gala marka in personal attack marka waxaa la yiri marka ninkan mar haddii aanan dili karin dhambaalka waa inaan dilnaa dhambaal wadaha if you cannot kill the message kill the messenger haddaanan dhambaal ka dili karin dhambaal wadaha dil macnaha doodii tala ku nool ahayd calanka in la bedelo oo la yiri 2 milyan ku qaaday iska daa oon diidnay oo la yiri agaasimo ku qaaday iska daa aan diidnay doodiina aan cidna celi karin shacabkii Soomaaliyeedna ay fahmeen oo qaateen waxaa ka dhalatay in ay timaado in shakhsi binaadam soo rsaakay shacabkii Soomaaliyeed inay qaateen haddii shacabkii Soomaaliyeed marka qaateen dadkaasi waxa meesha dhigta markii hore dadka qortay constitutionka ama dastuurka gaalada ee meesha yaal dadka qortay heesta qaranka iyo astaanta qaranka in shaydaan lagu caabudo shaydaankii meeshu jooga ma bixin wali shaydaankii wali meeshu jooga ma bixin waxaan rabaa qof kasta oo islaama oo dhageysanaya inuu sii shirkireeyo oo beejadka sii geliyo si shacabka Soomaaliyeed u dhageysto waa arrin runtii muhiima waa arrin khatarteeda leh waa arrin lagu talagalay in lagu jawaabo su'aalo badan oo banaanka yaal iyo waxyaabaha maanta la soo dhigo social media oo ah Sufyaan 9 qof oo soo dil arrintii markii ay waxba ka qaban waayeen markii arkeen in hal la ekaatee dhambaalkan ah calanka in la bedelo iyo astaanta qaranka in la bedelo haybta korka in la baabi'iyo in taariikhdii dib loo qoro oo la soo saaro waxyaabo badan oo qarsoon oo aysan rabin in banaanka la keeno waxay go'aan ku gaareen in aniga la soo weero oo la yiraahdo haddaanan dili karin dhambaalka uu wado Sufyaan Sheekh Axmed iyo tala ku nool kooxdaasi haddaanan dili karin asaga aan dilo marka waxaad qiyaasi kartaan marka khatarta ay leedahay in social media la soo dhigo oo ay soo dhigto group ay hogaaminayso BBC da waxay sameeyeen waxay contract la galeen wariyaal ka qaybta BBC da Soomaaliga u shaqeysa wariyaalka qaybta BBC da Soomaaliga u shaqeysana waxay heshiis la sii galeen wariyaal kaleeto oo Soomaaliya oo ku faafsan caalamka dhinaciisa dada lacag la siiyay waxaan lacagta loo siiyay in aniga magaca la iga dilo haddaanba aniga la dilinba inaan magaca la iga dilo waxay sameeyeen marka waxa lacagta fangareynaya hay'adda la yiraahdo saxaafadda caalamka ama ay isku tagaan journalism isku tagaan waxa lacagta fanka sii bixinaya hay'ad Talyaani soo Talyaaniga lacagtii bixiyay warar kale waxay leeyihiin xataa wad Mareykanka ku jira oo hore anigu aan xabsi ugu jiray dhowr sano 4 sano ka badan marka waxa la yiri arinta iyada ah ragaasa wata okay banaanka la soo dhiga maanta
waxaa la yidhi ninkii Sufyaan ahaa ninkii aqoon-yahankii ninkii professorka ahaa ninkii afar xaaslaha ahaa 9 qof uu ka takhalusay 1991 dadka aniga yaqaana aan reer Jilib aan jacadaadan ku dhashay laakiin Jilib aan ku soo koray Jilib 1991 ka soo tagay dagaalku markii Soomaali uu ka qarxay oo Siyaad Barre soo baxay ayaan soo galay Muqdisho nin tababar ciidan lama ahayn nin baalkii hub qaada ma ahayn weligiis jabhad kama soo shaqaynin ciidan ma wadanin nin yaraana oo problem markaas qaan gaaray 16 years 17 years jira intaasan jira maanta marka waxaa la taagan yahay ninkii 17 sano jiray 1991 9 qof uu soo dilay asaa dilay hada waa nimanka la sheegayana nimanna de ma aqaan waxay yihiin laakiin waa fahmi kartaa macnaha meesha ku jira marka waxaa fangareynaya BBC-da oo lacag ka helaysa hay'ado Talyaani intaan hubo Talyaani ujeedadu marka waxay tahay waxaa la yiri maamaha baa jirta English oo la yiraahdo if you cannot kill the messenger haddaadan dhambaalka dili karin dhambaal wadaha dil